waxaad sheegaysaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam cuntada hilibka uu jeclaa hilibka uu cuni jiray marka labada meelood ee hilibka uu ka jeclaa ma garanaysa labada meelood ee hilibka ka jeclaa ha hilibka labada meelood ka jeclaa ma maqasho horta nabigeen mar la sumeeyay oo gabadh yahuudiyada ay sumaysay maxay nabigu muxuu jeclaa oo cunaya lagu sumeeyay hilib laad may qayb hilibka kamida weey ma waslad ba ma jeeni ba ma beer ku aha ma kalib waa muxuu jeeni buu jeclaa ma garab ku jeclaa garab waay mid wad sheegtay waa garab ka labaad bal sheeg isku day soo dhadhoweys ka labaad waa run waa sax garabka nabigu uu jeclaa calayhi salaatu wasalaam hilibka garabku ka cuni jiray meel kale oo aad u jeclaa isagna jirta oo hilibka uu ka cuni jiray salawaatullaahi wasalaamu calayh hilibka ka cuni jiray xawayaan midoo ku tuur waa jeeniga dhib malaha waad isku dayday laakiin hadiyad kale ku siinayna qofkii garan waayay xitaa hadiyad baa la siinaya dhib malaha waayo waad isku dayday diinteennuna waxayna faraysaa in qofka isku dayay isaga laftigiisana uu leeyahay bogaadin waad mahadsantahay walaal su'aashaan ku weydiinaya waxa weeyaan saxaabigii ugu horreeyay ee ugu hor dhashay magaalada Madiina saxaabadu waa kuwii soo hijrooday Madiina wad garanaysaa Soomaa aad markii hadaba Madiina ay u soo hijroodeen waxa jirtay yahuudu waxay faafisay war kuteeno beena oo waxay dhaheen caruurta saxaabada u dhalato oo dhan waan sixirno wiilal uma dhalanayaan marka waxa jiray wiilkii ugu horreeyay ku dhashay magaalada Madiina nin saxaabiya buu ahaa abihina saxaabi buu ahaa saxaabaduna way ku farxeen oo waa la qaado xitaa nabiga loo geeyay isagoo la xambaarsan yahay ninka ma garanaysaa saxaabadu ku farxeen لا يدرس كل شيء عشان أنس بن مالك هون معين أنس مركا أنس أدو نولا ولا جاي أبا توبن شيرين وهاي المير لكن وصحابي كلوي دولي بقوسي فهيو صحابي جاء به وحكم ده طبعا كجند اللي يقول بشاري نبي جنا المبتبع هاين كرنس لما لا وتسكت ده isku day wanaagsan baad samaysay waan kugu hambalyeynaa isku daygaad samaysay hadii dan kala ku siinayna jazaakallahu khairan wad maadsantahay amalada ilaahay ugu jecel yahay ilaahay amalada oo wanaagsan oo dhan u jecel yahay salaada soonka waxa soo dhow jecel yahay laakiin acmaasha wuxuu ugu jecel yahay ma garanaysa xadiis baa lagu sheegay acmaasha la sameeyo salaada soonka xajka waxa soo dhan ilaahay uu jecel yahay wina amray Soomaa laakiin haddana qofkiis waxa jira laba qof oo salaada la imanay laakiin mid uu si jecel yahay ma garanaysa qofkaas ama dad badan baa noqon karaan qofka ahabbu alhadith ka dad xasuusato ahabbu al'amali ila Allah dash hadithka sida sheegaya a'malada ilaahay ugu jecel yahay waxa weeyaan salaada waa sax wad saxsantahay walaal Cabdiqani salaadu waa runib ilaahay uu jecel yahay laakiin salaada tan nooc ma ah buu jecel yahay marka ukaad هلو دايا سؤالش عبد الغني صلاة مثلا الصوم كوش عليه إلهي صوم كسنة وش عليه صلاة السنة وش عليه هاي لكن صلاة هي صوم كسنة صفة وحباية شرو كوش عليه هاي حلقة عادق لا تكذا ما عمل حلقة عادق لا تقف لا تروح ستون يبات هاي حلقة عادق لا هذا يبرر توصل ويسمع ما شاء الله أرين تاسلو وجرتها وصح إن حلقة عادق مركل تكذي إلهي كوش علانيه oo deewaakin nabiga wallaha xilliga adag qofkii la dadaala ayaa ilaahay u xasuustaa mid kale jawaab si kale noqonaysa samad garan isku dayda walaalo laakiin hadiyad kale ku siiraya wad naga raali ahaanaysa hambal yaro ku leenahay jazaakallahu khairan ya waxaad sheegaysaa Allahumma salli ala sayyidina rasuulillah saxaabigii cabay dhiigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam wali ma maqasho dhiigga rasuulka waxa looga jeedaa nabigu uu istoobay toobinta wad garanaysaa sama toobinta dhiig baa la sakeena dhabarka oo kale marka nabigu uu istoobay dhiiggiisi ayuu u dhibay wiil yar oo kamid ah saxaabada kii yaraba cabayba saxaabada kamid ah wali nabigu nijaasa ma dhiiggiisa xitaa ay damka siiyo cabay nin aqli badan buu ahaa Anas baa walaal marxaba walaal Anas wad soo dhaweysay Anas hadda sheegtay laakiin waa saxaabi kale dhib malaha wad isku dayda walaal jazaakallahu khairan aad iyo aad baan kuugu mahad celinaynaa hambaliyo walaal